ninkani aad u jeedaan kacbadii intuu dhex tegay ayaa waxa bilaabay in uu kacbadii ku rusheeyo benziin. وقت يا حاج وقت هذول ما عندهم لذيذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبتك وحنا جلك دوبنا هاي يوتيوب كسر هذا مقال كينا مانتا كعبة وحنا وكسرنا هاي إنها تهاي مال وإلهي أمان سدي مان وإلهي إلهي وأمني ذا سجى كعبة اسكو ضيّر له بربرنيا أيا له كعاي هسه أحاته حق الله يكيل عشان تهاي هذا كهر وين وجنا هاي وطاني خدع ودخلنا كل حتى يرانتنا الله ديجي جري أبرها كان حبشي نكي حبشي جها أبرها وحوس كده إنه بربريا كعبة هسه أحاته إلهي بأوصاد الشمبر دجحان سيدا شمبره أيا أبرها أي عيدم كيسي بدأ كوشيري أو ماشي كلها يعني كعبده ومن ولاهي سدا سويلاني حتى بوقت كان أي نجوجنو زمان كان أي نجوجنو دعدوين لياب له أو كاميرا قبضتي أو جودها كعبده كدعي أيام ما أنت مقالكم جودي سيد كله وذا جدورا بس أنت المقال كهروب وسعون صاحبي على الفضل إنها تذكر صوتها جلك تبينها سبسكرايب صار هذا كورس سبسكرايب صار تينا حكم بدل كفر سم مقال والبوصور دعكوس وقعد مقال كان لايك في سكوع مع ماذا هروح وكسونا موضوع صور كان ماشي إذا كم موضوع ومعقول إن درتين استقوا سوشيال ميديا دحكوا ريجي هذا بنين كان قصدي سمحتها ninkan kacbada ayaa waxa uu la tagay asaga oo gacanta ku haysta warkaasi ballaaran xariifkan hadaba dahraad miyo kacbada ka dhigaya muxuu kala doonay warqadan ballaaran u sito ninkan hadaba asalaantiisu horta waa nin Yamani ah asagoo Yamaniintiisaasi isaga barjeenayo iska degan oo jawi dhaxaysaga jira ayaa waxa uu maqlay boqoradii dalka Ingiriiska Queen Elizabeth ayaa farshatay oo adduunyadii maca salaamaysay ya Queen Elizabeth ma dhimatay warqad dheer buu soo qaaday wuxuu wano qaybtan Ingiriisi igu qora qaybtan Carabi igu qora oo maxay warqadani tahay waxaan doonayaa inaan u soo cumraysto Queen Elizabeth war khayr qaba Queen Elizabeth miyay ku tirsatay cumrada isoo cumra miyay ku tiri waxa warqadaasi ku qoran Ilaahay baa yaa ku keenay wuxuu leeyahay Queen Elizabeth ayaan u cumraysanaya Ilaahay qabrigeeda ha waasiyo Ilaahay jannadiisa ha geeyo saalixiinta Ilaahay ku taro وهذا الصحابة iyo rusushi dadkii wanaagsanaa ayuu leeyahay Ilaahay ku dhax taro Queen Elizabeth oo xaalkeeda ognay war in ka harqaba maxay ku tartay bal wax kale dad garan weeday Ali Abdullah Saalax oo mad cumraysatid cumrada ilaa iyadoo 96 kii sana ay noolayd maana garan waayeen intana u jirtaa aduu Ilaahay hadeeyay way tagi lahayd adiga yaa shaqadan ku dirsaday ma satahay qof u qalanta in loo cumreeyo maxay tahay wanaag ay qabatay waxay kamid ahayd madaxweyntii ugu saameynta badnaa ee Yuhuudda caawinayay ee ku dhiirigelinayay in Falastiin baabiyaan sawirkani meesha idin ka muuqda waa Queen Elizabeth oo booqatay banka dhexe ee dalka Ingiriiska oo ay buuxaan dahab markaas ay ku dooqaysaa ay ku faraxsan tahay leedahay dahabkani aad u jeedaan waxaynu ka faa'iidnay aynu ka hantinay wadamadii aynu soo guumaysanay oo kamid yihiin bariga dhexe iyo Afrikaba oo kamid tahay xataa dhulkeena hooy dahabkii oo la jiray berbere iyo dhulkaasi ay xaalufsatay markaas ay dhigatay banka dhexe ee dalka Ingiriiska saal guleeyahay Allah masaakiinta caawisa hay masaakiin caawisa manana ay carruurta saagu daadinaysa caawina sidii digaagadaha oo kale dhulka uga fadhanayaan masaakiinta yar ee Afrikaaniinta xataa kuwa badan oo harkay Soomaaliya oo u barooranaya Allah boqorada Ingiriiska dhibatay Allah saameyn gaar ay ugu yeelatay mid aniga Facebook saaxiib golaha islaawa nin aqoonyahan oo khatar oo de umba arkay nin kii dhanna oo u barooranaya oo tirinaya wax Ilaahay yaab ku keenayo oo tacsi aan nooceeda hore arag tirinaya xataa waa nin aan weligii arag asagoo tacsi diraya xariifkanina markuu maqlay Queen Elizabeth baa dhimatay dalka Yemen ka caawiyay tagay cumradii ma garanay ma attention buu raadinaya ma social media lagu waday ka tahay ma dhabbay ka tahay oo doonaya inuu saxaabadii iyo dadkii ahlu jannaha ay ka soo dhex muuqato oo yiraahdaan warhaaya tan xagee naga soo gashay ninkani aad u jeedaan kacbadii intuu dhex tagay ayaa waxa bilaabay in uu kacbadii ku rusheeyo benziin وقت يا حاج وقت هذول ما عندهم لا دين يتاجروا بدين الإسلام يتاجروا بدينكم وتاجروا بأمتكم كعبدي دلناyd ma gubi rabtaa dadkii baa yaabay bismillah ninkii ayaa dhawaaqay oo balaayo akhriyo oo bilaabay inuu benziin ku rusheeyo ninkii adigu asagoon dad qabadsiin baa laga gaaray oo lagu soo ururay ciidamada ammaanka iyo dadkii cumraysanayay iyo dhabaxay waxba laga jartay waar mad waalan tahay dhac
والله قبتي هذا من كان مركي أرنتي سي بارتال لو سمي وحلو قاعد إن حوجي عقليا ووفية إنه عقليا حوجي عادي هين مرة بدن وسكوتي إنه يستلو بس إلا بتبادي بس ده يا أخي عمري ده نوع والبس سوق هذا بقى جبوا كدنبية بالكنا إلى أركا no حسمانية كعبادي ترنيد ay dadku cibaadeysanayeen ee salaad lagu jiray ayaa asagu wuxuu la taagan yahay sigaar adoo ninkii ugu dambeyn asagoo markii dadku rukuucaana intuu iska sara kaco sigaarkii qac ka siinaya ayay kaamirooyinkii xaramku qabteen ciidamadii dhinaca amniga xaram ku sugnaa ayaa ninkii adigu gacanta ku soo dhigay يا والله دنا waxay ku hameynayaan ilaahay oo noloshayda hal murun cagta yasar beedka ilaahay xaramka kana sigaar buu dhacabayaba يا warkana maxaa ka qaylaysiinaya ninkan aad qayladiisa maqlaysaan ayaa hal mar dadku waxay ku baraarugeen asagoo dhawaaqaya oo qaylanaya oo ku hadlaya eraya aan la fahmayn waxa uu leeyahay ninkani anigoo dawaafaya ayaa waxaan arkay jin garabkayga dawaafaya garab socda hadda waa jin ah hal mar ayuunbana ninkii afka furtay uu qaylo iyo dhawaaq iyo waxaynaan maqal meeshii ka bilaabeen akhriyo yaa ogdee ma xanuun nafsiya ninka haysta ma jiman run arkay ma si kala la shufna muuqaalka xika muuqaal runtii la oran karo waa mucjiso yani waa la yaab sababtoo ah waxa la arkay shimbiro kooxa dhan ah oo kacbadii ku dul wareegaya kacbadii waatan soo maaha hareerteeda ayay dul wareegayaan sidii inay calashaan cumraysanayaan oo kale muuqaalkan xiga waxaad ku arki doontaan nin dadkii cumraysanaya kamid ahaa oo hal mar kacbadii fuulay muxuu sameeyay waxa uu isku dayay inuu albaabka kacbada jabiyo tolo muxuu doonayay ma inuu gudaha u galo ayuu doonayay adigoo ninkii asagoo la rafaadaya ayay bilaysi gacanta ku dhigeen ka soo dajiyeen meesha muuqaalka u dambeeya waa nin hal mar uun kursi kamid ah kuraastii xaramka yaalay intuu qaaday ku bilaabay muraayadihii xaramka bashkala war masjidku muxuu ka biyay muraayadihii ayuunbuu hal mar ku bilaabay inuu burburiyo ninkii ugu dambe markii biliiska gacanta ku dhigeen ee baaritaan lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu xooga dhinaca caqligaasna sidoo kale aanu caafimaad jirin si kasta ta saaxiibayaal intaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ha ilaaliyo xaramka waa qibladeena waa dhankan u dukano waa beedka ilaahay marka cadawga ilaahay ka ilaaliyo gabahna muuqaalkan intaas uu ku yahay fadlan muuqaalka like saar hadii wali saaran channelkana subscribe sidoo kalena page ka muu fahmi flow soo dheh sidaas iyo nabad gelyo